nidaamkaas aan dawladda ku noqonnay markii aan nimid waxaad garan kartaan 2012 dawladdii kumeel gaarkeed markay isbedeshay oo federaal dalka isku bedelay wixii nagu dhacay waad garan kartaan wixii dadkan lagu sameeyay waad garan kartaan dadkan ragiinaan doqomana ma ihdin mana waalidin wixii aan soo marnay oo askarigii walaalka ahaa oo tababarka isla soo qaadateen oo adawga ka wada cararteen oo dawlad kale oo saaxiibo aan ahay aad u wada gasheen oo qoryaha idin soo siisay oo gaariga idin siisay oo saadka idin siisay oo idin soo raacday oo adawgiina in la jabisay in adiga iyo ninka saaxiibka ahaa ama taliyaha ku ahaa ama taliye ku-xigeenka ku ahaa ama taliyaha unuga ku ahaa ama askariga kula ah la idin kala leexiyo oo xabad la isku rido yaa sababay mashabaab sabab yaa sababay dawladdii federaalka Soomaaliya oo xilliga ayda jirtaa sababta ayagoo cadawgi lala soo diraya dawladda dhalatay Soomaaliya saasa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo wasiir lagu noqday haddaba heesta ayada ma dhamaanin ogaada haddii waqti ay socotay waxba isbedelay isfahan baa yimid isfahankii hadduu yimid sistemyadii dawlad goboleedyada soo dhismay nidaamkii asaga ahayo la isfahmay oo dhan waa baxay nidaam kale oo hor laha yimid hadda waxa ka taagan wiilkii aabihiis wiilba waxa lagu xama jiraa leeyahay nin odaya inuu dhalay oo una aabihiis inkiray oo aabaniman aan u ogolayn ceelba iskula yimaadeen inay xoolo ka wada shubtaan garabka ku dhuft oo dadka kama dhagal idi dadka kama dhaga yirid bil aadanka aniga ceelka igu ridi macnaha asaga waa xoog dhalinyaro way inaan ku dhalay waa ogtahay waa meeshii la baydhabo doorasho ka socoto waxa ka jirana xogaal bad ka tihiin baabuur dad laga soo hormariyo 20 wasiir oo la isku soo daro barnaamij waad aragtaan anaga doorasho u soconaa qofkii rabo inuu doorasho galo waxaan ogolnahay asagoo nabad ah oo ammaan ah oo shakhsi ah inuu airportkaas ka soo dago ma dhibaateynayno xaq buu leeyahay soo dhow baan lahaynaa wax barbareem oo kuma qabno laakiin waxa dadka qaarkiis loola dhaqanayo cid noola timaado awood baa u leenahay inaan garoonkan ka celino soo meeli karno allahumma darajo kasta ha sheegto waxa ka horeyso qofka rabo systemka aan ku noolnahay system aan ahayn inuu nagu dhaqo oo waxaan raalli ahayn ka sameeyo horta annaka marka hore inuu naxaaqo hawna buufiyo hadduu rabo hal maalin saas qofkii ka suurta gasho inaan rabitaankan uu daba mariyo uu yeeli karaa laakiin intaas wixii ka duwan waxa ogolnahay qof gaar kursi u la ma jiro qof gaar boqortooyo waligiis haysanayo ma jiro laakiin waxaan rabnaa wadan nabad ah oo ummadda qofku uu sumeeyahay musharax waa la yaqaan waa kii kaligiis iska imaan jiray waa kii dhihi jiray war waxaan rabaa laakiin qaab awoodeed haddaan dareerno waxaan malaynayaa waxaan wadano ma ahan bakoorooyin ma aha soo saas ma أول إله ما أذكر تبارك وتعالى وإذن هذا علنا يا بعض الصحافة وحنروى بإذن الله تعالى ما أنت إن الشعب الصومالي اللي باش عنك إتوا أنا لو ذاقو كرير أو قوان أو قصاب سنددي البلاد وشنطة البلاد هاد وأفضل كل إيهستي حقيقيا حنروى أولا رحت إلى هاد عليو لما شعب الصومالي المسؤولين تي صوماليين وكحماتي وحلي اللي ورد رقمي سيدي اللي وسوي بيش سيدي دا سودان يكون سنة كهرباء الماضي أنا بسفرة ومقالة مقدشو قرونك آذن عدى سفر ترانسيد وكواحا قواشد اللي قبطي دولة الفدرال كأه شعورتي أي كموجية شعب الصوماليات كارهان رجبلان دل يدود با إيه مسؤولين بدن الصوماليات ولو ربنا سيجارة أو مهد عليو مدحونها دولة بطلان ولكن سعيد عبد الله الدني يحل بان فقي ورنتي قديد السيجارة أو حلي هذه أبو مهد عليو الأمان المسؤولين الشعب انتبه ذاتك الصوماليات نفتي وحلي ورد أغمي أنت سكدب أنواع عثمان قباء الحمد لله وهذه بعض عثمان قباء وحلبات أمان قباء وحن كسونا هاي مقالة بلد حاوي قبل كجدو وحنرها إمت وأن جوجا مدة 3 مالين وحنجعلها إن شاء الرحمن قبير وقوان وحاليه يسدي وحول عين والسيرة أذبر أما حقيقيا الثقة أذفر بدل مدة شنطة بالوضع هيد بحي أن صومري
ama shakhsiyan wixii la igula dhaqmay intaba waa barnaamij u baahan waqti dheer iyo fursado fara badan lana wadaagi doono insha allahu tacaala shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintooda intaba iyo beesha caalamka falal aada u foolxun xaqiiqiyan aana ku wanaagsanayn dowladnimada iyo soomaalinimada intaba oo la igula dhaqmay waxaan dareemayay ama aan dhacday qabashadiidii eelboorka magaalada muqdisho laga qabtay in siya kala duwan looga hadlay lagana dhigay qof dambiile ah oo dembi loo haysto dad shacab a dhibaateeyey hebrow kankan waxyaala noocaas oo kaleeta ah waxaan rabaa inaan xasuusiyo shacabka soomaaliyeed iyo qof kasta oo codkiga maqlahay intaba shaksiyan cabdirashiid ahaan waxaa muqdisho tegay qabashadiidii ka hor bishii 6 27 anoo ka tegay magaalada Kismaayo caasimada ku meel gaarka ee Jubbaland waxaa garoonka ugu soo dhaweeyay xildhibaano iyo wasiirro dowladda federaalka Soomaaliya ka mid ah waxaan degay xarunta nabadgelyada qaranka Soomaaliya waxaan joogay ilaa bishii 7 waxaan la kulmay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddo 2 jeer ah oo loo mid waqti ka mid ah jaanis aad u dheer aan isku helnay madaxweynaha oo aan ka wada hadlaynay qadiyad ku salaysneed inta badan doorasho la rabay inay ka qabsanto Jubbaland iyo aragtiyo kala duwanaa oo dowladda dhexe iyo Jubbaland u dhaxeeyay waxaan dhex deganaa taliska isaa hore u sheegay nabadgelyada qaranka oo saraakiishiisu ama hay-adda saraakiisha u sarreysay aan ku ranay muddo ayada nafteeda ilaa 2 jeer ah oo aan isla deganin oo aan deganin hotel oo aan deganaa guriga ku dhex yaalay xarunta hay-adda nabadgelyada waxaan ka soo tegay bishii 7 sidaan horeyba u eray 8 waxaa dib leegu qabtay aniga oo safar ah xamar ama muqdisho garoonka aadan cadde bishii 8 31 bishii 7 marka haaf ka mid ah waxay soo disle bishii 7 haaf ka mid ah iyo bishii 8 oo 31 ay ku ekeen maraysay oo la qabtay miyaan dambiilo ku noqday mana ahayn marka hore dambiile madaxda qaranka la kulmay xarunta dowladda deganaa taas marka shacabka Soomaaliyeed ay fahmi karaan iyo qof kasto oo xaqiiqiyan arrimaha Soomaaliya ee ka warqabo wixii aan ku xirnaa dambi ummadda shacabka Soomaaliyeed iyo dalka iyo dadka midna aan ka galay inaysan ahayn inay ahayd barnaamij siyaasadeed qadiyad siyaasadeed oo dabcan ku kala aragti duwan sidii wax u rabtay dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidii shacabka reer Jubbaland dantooda iyo maslaxadooda aad ay wax u rabeen aragti kala duwan ay noqotay oo dhacday doorashadii dhacday 22 bishii 8 oo 31 la qabtay waxaa marka qof kastoo bilaadan u fahmi karaa ama Soomaaliyeed ama rabaa inaan u xaqiijiyo shakhsiyan in dambiile ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dambi ka galay ma ahayn maxaa sida waxa barnaamijka Kismaayo ka dhacay sida uu dhacay kuma aan qanacsanayn buu ahaa wixii muddada 5 bilood ah lagu hayay hal ay ahayo dhima lahaan siyaasad ragoo lagu qabtaa way dhacdaa dad kale aragti duwan in ay ku timaado barnaamijyadan oo kale wax iska iman karo laakiin waxa haddana nasiib darro ahayd muddada 5 bilood ah inaan xarun dowladeed arag laguna xirin waxaa maqli jiray markii burburka dhacay inta badan dadka shacabka Soomaaliyeed gobolada magaalada Muqdisho ku xirnaayeen oo ganacsigooda ay ku xirnaayeen waxaa maqli jiray ninkii hebel ahaa oo ganacsadaha ahaa bakaara dad Soomaaliyeed hantidooda oo ku dhintay oo afduuba guriga loogu haystaa dad shacab ay leeyihiin waa maqli jiray xilligii ba dhici jirtay taasaa dhici jirtay qaybo ka mid ah waxaa markii soo baxday in aanay markii la qabtay aan igeynin wax xarun dowladeed ah hal maalin guriyo madaxda dowladda ay sitigi karin xaqiiqiyan riski ah dad shacab oo Soomaaliyeed dhisteen xaafado duur oo ku yaalo dowladdu aysan kontroolin baa usbuuciyaba guri la igeynayo lagu hayay ma garan karo waxa la igu wareejinayay dabcan guriga xaafada xamar ku yaalo oo inta badan waliba ka mid ahaa guri lagu hayay inta badan xaafada Hurwaaba ahayd kolba maalba guri in la igeeyo waxaa maxkamadda igeeyay si shacabka Soomaaliyeed loogu qanciyay inaan dambi leeyahay bishii 9 6deedii markaan 36 casho xirnaa kadib bishii 10 6deedii 36 casho markaan xirnaa kadib waxa la igeeyay guri waxa la igeeyay maxkamad
gobolka banaadir waxaa cajiib ahayd eedo waxaa jirtay 2015 barnaamij siyaasadeed ku salaysnaa inta badan oo la ii soo jeediyey eedeyntaas horey iigu soo jeediyey waxay maxkamadda gobolka banaadir iyo xeer ilaalinta qaranka bay xireen bishii afraad 30keedii sida inta badan ummadda Soomaaliyeed ay arkeen oo fayl dacwadeedkaas ay xirtay maxkamadda gobolka banaadir iyo xeer ilaalinta intaba waxaa cajiib ahayd in isla gudoomiyihii maxkamadda gobolka banaadir oo bishii afraad warqadda qoray isla asagii anigoo la igu eedeynaya isla barnaamijka asaga ah la ii geeyo oo gudoomiyihii naftiisa u yaabo cidda ay ka timid in warqadaas la qoro barnaamijkaas barnaamij siyaasadeed ahaan uu ahaa madaxda dalka u sarreyso oo xeer ilaalinta iyo maxkamadda intaba kala hadashay in wixii eedeyntaas la iga qoray shalay ay gardarre ahayd barnaamij siyaasadeed u ahaa dulmi u ahaa maxkamadduna ay xirtan gaal dacwadeedkaas wixii ka dambeeyey xilligaas markuu arrintaas dhacday kadib waxaan dalbaday in aan helo lawyer waxaan si darre ahayd in la diiday lawyerkii aan lahaa in uu wax kulan ah ila yeesho ilaa markii dambe si cad loo yidhi ninkan kiiskiisa barnaamij aada ka noqon kartid qareen ma ahan iskaga tag oo ku qanciyo ummaddii qabatay aniga inta badan xiriir waa lii diidaye oo ehelada ila ahayd dib uu ugu soo noqdo lawyerkii oo uu yidhaahdo barnaamijkan kiis siyaasadeed waayo ma ahan kiis maxkamad lagu xallin karo siyaasad baa lagu xallin karaa waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego sida horeyba ninkii taliyaha ninkii sargaalka sare ahayo jarnaalka ahayo ka tirsanaa asluubta ciidanka asluubta Soomaaliyeed inaan aniga bilkulliyanba hal maalin xabsi dawlad ay leedahay station dawladeed xabsi ku yaalo ama xabsi dhexdo dawlad ay leedahay iyo xarun dawladeed midna inaan arag waxaan kaloo rabaa inaan xaqiijiyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan rabaa ummadda inaan u xaqiijiyo meel aan ku xiranahay kuma soo rin wasiirka amniga oo isku bahda ahayn ma uusan ogeyn meel aan ku xiranahay shakhsiyaad yar oo kooban oo taliyaha nabadgelyada qaranka Fahad Yaasiin kulane oo baawar aad u fara badan dabcan shaati qabiil baa lagu siiyay aan dhihi karo oo ama ku xirtay ama wixii dawladda iyadii naasabadan ay ku burburtay in raad badan oo kamid ah ayuu ku shaqeynayo aragtida ay muuqanayso in qofka saddexaad oo barnaamijkaas ka warbay wuxuu ahaa Saadiq Joon oo ah jarnaal Saadiq Joon oo ah taliyihii qaybta gobolka banaadir saddexdaas nin dabcan waxaan u wareeyay wasaaraha dalka Soomaaliya lugna inuu soo kulayn ummadda Soomaaliyeed rabaa inuu xaqiijiyo inuu soo lugna kulahayn dhibaatayntii 5 bilood la imariyay meel aan ku xiranahay iyo wax la haysta midna uusan ka warqabin ra'iisul wasaaraha dalka taasna xaqiiqiyan wax dhab ah oo jirtay ahayd falillahi alhamdu wal manna barnaamijka asaga ahaa waan ka soo gudbay waxaana ii suurta gashay waddo kastoo isticmaalayba inaan maanta xorriyad ahay joogo deegaanada Jubbaland degmo ka mid ah ku suganahay buulaxaawo dhex jooga ciidamada daraawiishta dowladda gobolka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo arkahayay waxaan kaloo dareemayay tarifeynka ciidanka gobolka Soomaaliyeed Jarnaal Sakiya hawareerta way aniga oo gabar hawareerta waayo mar raba inaan ku fogaado laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo labada jeer ila cad ay ka hadashayba marna axwaashida kama soo warqabin markasto waxaan rabaa in aan telefoon loo soo diray ama loo yeero u tagto dadka systemkaas gacanta ku hayay loo diray in ay idaacada ka hadasho laakiin aysan ka warqabin system aan ku xiranahay iyo meel aan ku xiranahay iyo wax lagu haysto midna hawareerta marka oo cudur daaraya dhimale biidnillahi tacaala mar raba inaan ku fogaado dabcan intaas markaan ka soo gudbo waxaan aad uga xumahay waxa maanta ka jiro gobolka qayb ka mid ah gaar ahaan degmooyinka Balaxaawo Doorow iyo Balaxaawo iyo Luuq markii koonfurta Soomaaliya oo dhan ay argagixisadu qabsatay 2008 waxaan umaleynaya Doorow ay ahayd degmada keliya ah koonfurta Soomaaliya ku taalo oo shabaab ka badbaaday waxaan dib ugu abaabulnay ciidamo Soomaaliyeed oo dawladda TFG ama dawladda kumeelgaarka Soomaaliyeed ka mid ah hoos yimaado ciidamo qaran ah ciidamo dawladeed ah
waxay ciidamadaas xoreeyeen balad xaawo bishii saddexaad 2012 bishii saddexaad shanteedii waan buul xaawo qabanay bacda shiddo tacab dagaal aad u fara badan iyo caqabado fara badan oo soo maray kadib magaalada dib waxa loo qabtay shantii bishii saddexaad 2012 luuqna waxaan qabanay 7 bisha kadib Garbaharey ayay ciidamadaas qabteen oo caasimadii gobolka ah ama xaruntii gobolka ah waxay ku sugnaayeen muddo badan weeraro badan iyo dagaalo badan oo hajuun ah oo cadowgu ku sameeyeen oo isku difaaceen waxa koonfurta Soomaaliya ognahay 3 magaalo isku furan oo shacab iyo mas'uulba si nabad ah loo mari karo waxa ka jiro balxaw dooro iyo luuq gaadiid intii loo kala raaco cabsi la'aan lagu maraayo jidkeeda intii ayadoo nabad ah maanta inay dawladdu nabad ka qaado oo mas'uuliyiinta dawladdu u sareeyay ay ku fikiraan in shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adihi samafalku ka dhex shaqeynayay oo ummadda Soomaaliyeed bulshada oo dawladda looga baahnaa qayb badan oo kamid ah u hayay shacabka Soomaaliyeed in khalkhal la geliyo oo shacabka la dhibaateeyo oo hadda dhimasho jirto oo dhac uu jiro oo shacabka khalkhal la geliyo intaasna xaqiiqiyan waa arrin aad uga xumahay waxaana dabcan mas'uuliyadda qaadan doono madaxda Soomaaliyeed oo go'aansatay in dal nabad ah ciidamo Soomaaliyeed ay joogaan oo daraawiishada dowlad goboleedka Jubbaland ay leedahay khalkhal intaan la eglin oo dhibaato intaan la eglin sameeyo iyadoo waxa la dirahay tahay hebel baa nacbahay waxa guul darro ah hebel baa nacbahay ama hebel baa nacbahay in shacab Soomaaliyeed noocan loogu galo arrin xaqiiqiyan aad guul darro ah waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagi doonaa muddadii aan joogay Muqdisho oo koobneed oo aan horey uga hadlay oo madaxweynaha dalka dowladda federaalka Soomaaliya aan kulanay muddada 2 jeer ah muddada dheerna aan kulanay waxaan rabaa inaan xasuusiyo shacabka Soomaaliyeed muddada yarkeeda hadda usbuuca ka yar oo ciidamadan la keenay degmooyinkii amniga ahaa oo nabadda ahaa oo 2012 la xoreeyay oo cadowga laga fogeeyay oo nabadda haysatay waxaa hadda dhacday in magaalada degmada luuq oo kale akaaro oo xarada ciidanka ay ka shayso oo magaalada gudaheedii ah istaalkeedii in shabaab daawo ka rartaan sababtuna ay tahay raggii ilaalinayay oo yaqaanay oo cadowga meesha uu soo marahayay yaqaanay iyo systemkay wax ku ilaalinayeen oo dhan baa meesha laga saaray doolow oo amniga ugu badan uu ka jiray gobolkana dhimasho iyo dhaawac baa ka dhacay waxaa dhacday bulaxaawo in shacabka Soomaaliyeed caruurtooda cashooyinka ay u karsanahayeen digsiyadii in dabka lagala daway askaro cunto waxay ku noolaayeenna ama balaxaawo amniga ay haysteen iyo luuq iyo doolowna ugu dambeyn sanadii hadda ugu dambeeyay waxaan filayaa mid ay marqaati ka tahay beesha caalamka gaar ahaan hay'adaha samafalka ka shaqeeya iyo bulshada Soomaaliyeed ku nool intaba waxay ahayd mid marqaati madoonta ah oo qof kasta Soomaaliyeed uu og yahay amniga ka jira degmooyinkaas harma shacabka iyaga tira badan iyo badan ma soo marnay waxaa joogay ciidan akhlaaqiyan aad u wanaagsan ciidan Soomaaliyeed ah waxyaalaha xataa muqaadaraadka ah oo inta badan askarta Soomaaliyeed isticmaasho aysan dhici karin askari barnaamijka isticmaalayo uu ku dhex noolaado ciidamadaas waxaa dhacdo waxyaalaha hadda shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan degmooyinka ka dhacay kamid ah maqaayadaha cuntada lagu karinayo intii la soo galin la yiraahdo xashiish iiba ma haysa khamri iiba ma haysa ayadoo biyo lagu dari jiray arki jiray ayadoo saaka aan maanta haysanaa isku bishaareeyo oo qoryo askari qori jiidahayo oo magaalo dhex marahayo oo qoriga intuu gafoor ka qabtay dhulka ku jiiday wallahi waa wax nasiib darro oo aad looga xumaado waxaana barnaamijkaas ayada mas'uuliyadda qaadi doono madaxda dowladda federaalka Soomaaliyeed oo ku fikirtay arrintaas ayada ah waxaana rabnaa in aan xaqiijiyo in aan shacabka iyaga ku fiirsanin dhibaato badaxaawo 2012 markaan qabanayna waxay ahayd magaalo ay go'aansadeen shabaabku inay difaacdaan madaxda shabaabku dhan isku timid waxaan qaadanay waxa aan ku noolno shacabkii uu ku nool yahay inaan u adkeysan karin markaan xoreyntaas gobolka sameeynay waxaan rabaa inaan xaqiijiyo inaan marnaba u dulqaadanaynin waxa ka dhacay systemkan waxa nin oday laga sheegay sarhayo nin dilayo muxib hadii shalay shabaab cadow ahayeen oo shacabka Soomaaliyeed inaan kala tacaalno aan go'aansanay hadii cadowga cadow ka duwan oo la mid ah shacabka Soomaaliyeed lagu sii daayo oo dhibaateynayo oo mas'uuliyiintu ahayn marnaba ma aqbaleen in diritaanka anaga
iyo dowladnimadanada iyo waxaan ku salaysanahay in lagu ciyaaro midnimo una xaqiijin rabaa in aad baan waxaan uga xumahay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo cadowgooda uu banaanka taagan yahay oo dalkii uu amni darro ka jirto oo cadow shabaab uu haysto in maanta ay dib la iskugu laayo aad iyo aad arnaan uga xumahay waxaa kaloo nasiib darro ah magaalada Muqdisho aan ku xirnaa 5 bilood oo aan afduubka lagu haystay maalin aysan dhibaato ka dhicin oo aan qof lagu dilin أو بصورة الجديدة أو بمبنى لها الجطورة أو قرحة كذا أو سيد كياد إكس كنترول كذا أو الشعب الصومالي أو فرب بدن يبات ضد أمد الصومالية دولة كلا أو نكل كلا أنت وهالقول لا وحقيقة إن أمن جميع المقدسة وزيرها أمد الصومالية إذا فهم يسوي أكتها أو مقدسة يأفجوا يصدق كيلومتر دولة كنترول لا صدق كيلومتر أفجوا يسكده مقدسة جديد دولة كنترول لا هل جد أو كلا حرال أو قف مسؤول قف عن هي الأسمري كريم أفراد تكسر عن دبات كرام قبل لا يدمون النبض أهنا أمني قال قالوا برامج كان لسمي فاسنا وحرنا أمد الصومالية يباشا عالم أنت بقى وحيلها دعها يو ومسؤولين تدولة الصومالية وهذا ذلك الملاحظة كل فكرة يعني وحرنا 2020 إن جارنا قفنا جارك تدون وأنا ترين بارنا تاسنا ضل لساني دورنا لو أهنين أديات وما سنتين وعرّا أمد الصومالية لنا أحقيقي إن لو ذاك دونه من بداية إلى النهاية أما الدمار إلى باللو شنتي بلود وحلو ورد أديات وما سنتين يقدر ده وإحنا عندهم godadka laga saaray waa kuwan ifeeske waxa weeye ku jireen waa kuwana nimankii nabaadiidka meelay deganaayeen waa kuwan waa kan ninka askariga oo nabaadiidka ka saaray oo xoreeyay degmada Balad Xaawo oo ka saaray maasha Allah waa ciidamada gorgor الله يقولي قالوا بس هذا محل لها تذكر الشعب قريب لها ما شاء الله يقولي سبحان الله صعب وقاعدين ما شاء الله هم لنا شعب حب ما شاء الله ما شاء الله عيمة حوق الدولة الصومالية وحالي إلا ساكي وتاجنا هيك وتاجنا عاد إنسان وكلول قرح إنسان وكلول ديجودية نفس ظهوري ما شاء الله وعلينا قول هاي سرعة صومالي أنورا ما شاء الله ما شاء الله إذا ماذا الله خير سيء ما شاء الله وكوا نمك سايد هالجمي نمك نباديت كمجال كساري وكوا عيدن حوق دلك الصومالية كساري نباديت كدجمة بلد حاو وعلينا هاي منديرة waxay galeen xuduudka Mandera waa galeen saakayta Mandera gacanta ayaa ku qabsaday waa kuwa ma sha Allah waxaan leenahay ciidanka Soomaaliya mar walba waxaan leenahay cadawgiina cagta hoostaan ku ognaa insha Allah guul baan u rajaynayaa Soomaali inta dhimanna waxaan rajaynayaa inay soo afjaraan Mandera waxa way saakata aan galaan waxaan galaan waa magaalada Mandera dhexdeeda
ciidamada wakaasa meelay deganaayeen furmi waa kuwan biyaan waa biyo xalay muqdisho ka soo qaateen ma sha Allah walaalkii waa kana ma sha Allah waa la qanimaystay joodariyaashoodii isjaayidoodii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya guul baa u rajaynaya nin joog laga waa soo jibsa laga helaa سجايا وريا الدنيا زعتها ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa guulo waaweyn ka gaaray dagaal ay ku soo qaadeen ciidamada sheeganaya daraawiishta Jubbaland oo garab ka helay dawladda Kenya dagaalkaasi oo socday saacado degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado ayaa waxay gudaha u galeen ciidamada xoogga qeybahooda kala duwan magaalada Mandera waxa ay la wareegeen dhammaan goobihii ay dagaalka ka soo qaadeen ciidamada daraawiishta Jubbaland isla markaana garab ka helayay ciidanka Kenya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa dib ahaan gacanta ku dhigay goobihii ay fariisimaha u hayeen ciidamada joogay dhanka Kenya ee xuduudda ciidanka ayaa waxa ay dagaal ku soo qabsadeen 3 baabuur oo tignika ah halka 2 kalena ay ku gubeen waxa aaga ugu horeeyay jiidda dagaalka ka socday joogay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado ahna madaxa amniga iyo siyaasadda gobolka Mudane Cusmaan Nuux Xaaji Macalimo iyo taliyaha xasilinta gobolka Gado Abdiraxmaan Cabdullaahi Aadan Bakaalkooke iyo saraakiisha kale ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qeybahooda kala duwan iyo dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Gado oo ka qayb qaatay doorkooda dagaalka geesinimada ah ay maanta muujiyeen ugu horeyntii waxaa goobta fagaaraha aargada ee degmada Balad Xaawe kula hadlay shacabka reer Balad Xaawe ayaguna doorkooda ka qayb qaatay dagaalkani gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado ahna madaxa amniga iyo siyaasadda Mudane Cusmaan Nuux Xaaji Macalimo iyo taliyaha xasilinta gobolka Gado Abdiraxmaan Cabdullaahi Aadan Bakaalkooke oo u mahadceliyay shacabka reer Balad Xaawe oo u muujiyay dawladooda hiil iyo garab istaag بافر بريء حبط مرسولية حبط مانية صافوا عدوكتين عيدك حوك دلك الصوماليين إيش عارف الصوماليين حبط مرسولية وعدوكتين دلك السجال كسران الحكومي ونمكة تولي الحكومين إيمان حبط بالله وعلاي حكومي إن عيدك حوك دلك الصوماليين إيسان قعماء كلا من حبط مكالين ما أنت التالس كي قعدتها كسولية لما كمل هو ولا متكمل هو ولا جوي لما قعدت قوتنا
waxaan hoobi iyo biitem ay magaalada ku garaaceen waad ogtiin dad magaalada ka naxaya maaha qolyihiina qaadataan diyaar garowdaan iska celisaan keeyo dhulkeeda uma soconno dawlad deris ahaan nahay ayagaa nagu soo xadgudbay waana la xalliyey arrintii ayada ahayd oo si nabadgelyo ay ku dhammaatay guryihiinna nabad ku taga nabad ku seexda wax dambe oo cadowood ka baqdaanna ma jiro insha allah marka isdejiya guryihiinna ku noqda xoogaa ciidanka xuduudda aan ku simi doonnaa aan annagu leennahay waad garanaysaan kenya ayadaa nimankaa marti gelisay ayadaa u soo gudbisay xadkayaga wixii xadkayaga ku soo xadgudbayna shaqaannu ka qabannay aadaa u mahadsantihin saa u difaacaysaan dalkiinnana waa ku mahadsantihin dhalinyaro cabdinuur shableeye xasan cabdinuur shikir warbaahinta qaranka degmada baled xaawe ee gobolka Gedo